السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada aan idinku talagalay. Qodobada barnaamijkan idinku hayo waxa kamid noqon doona telefishinka Al Jazeera oo caawa warbixin cajiiba ka diyaariyay gantaalka dunidu ka qaylisay ee dhawaan ay tijaabisay Iran ee la yiraahdo Sayyad G3 sida uu ula dagaalami karo cirka iyo dhulka iyo badda intaba. haddaba tafaasiisha sheekada cajiibka ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. متقاسم به شناورهای تندرو و سکوهای پرتاب موشک‌های کروز است. با موشک صیاد 3F که هدف خود را در فاصله 150 کیلومتری رهگیری و منهدم می‌کند. waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu hayaa taliyaha ciidanka dhulka ee Iran oo caawa isaguna war soo saaray. dowladda Cumaan oo iyaduna sheegtay dhawaan in la qaban doono wada hadaladii Mareykanka iyo Iran. qodobadaas ayaynu barnaamijka caawa ku faahfaahinaynaa waana barnaamijkii saddexaad ee maanta aan idin soo gudbiyay. iyadoo hore aan idinkugu soo gudbiyay barnaamijkaygii koowaad iyo kii labaad oo aan hubo inaad si weyn uga hesheen. haddaba caawa barnaamijka waxaynu ku qaadaa dhigi doonaa warbixin cajiib ah oo soo korortay oo ku saabsan gantaalka la yiraahdo Sayyad G3 ee Iran dhawaan ay tijaabisay. waa taa shalay ka sheekeyneen Al Jazeera marka caawa ayay waxay ka samaysay barnaamij cajiib ah ka samaysay. waxay leedahay gantaalka sidan uu u dagaalamaa macnaha cirka loo dirayaa ilaa 30,000 oo kilomitir ilaa 30 saas u soconaya oo 1,000 oo maartay oo cirka u galaya. saan marka loo seexiyana hadee markab waa ku daayay nagtu ka saaraya. marka waxyaabaha uu gantaalkanu yahay iyo waxa uu ka samaysan yahay ayaa Al Jazeera ay faahfaahin ballaaran ka bixisay. marka hore aan idin tuso gantaalka oo ay tijaabinayaan ciidanka Iran oo video kooban Al Jazeera ay ka sii daysay. متقاسم به شناورهای تندرو و سکوهای پرتاب موشک‌های کروز است. با موشک صیاد 3F که هدف خود را در فاصله 150 کیلومتری رهگیری و منهدم می‌کند. waaye markan waxaan galaynaa marka warbixinta kuwa ugu muhiimsan gantaalkan ay ka sheekeynayaan Al Jazeera. haddaba sidaad arkaysaan wariyahan waxa uu ka sheekeynayaa uu ka diyaariyay barnaamij wuxuu leeyahay gantaalkan magaciisa waxa la yiraahdaa Sayyad 3G ayaa la yiraahdaa. wuxuu leeyahay gantaalkan waa gantaal aad iyo aad looga qayliyay. waa gantaal maartay dunida oo dhan hadda ay ka yaaban tahay sida loo sharaxay iyo sida Iran ay u sheegtay hadduu u shaqeeyo. wuxuu leeyahay gantaalkan wuxuu noqon doonaa gantaal balaaya ka dhacday oo aan caadi ahayn. waayahay haddana sawirka kale aad arkaysaan wuxuu leeyahay gantaalkan wuxuu hawada galaya isagoo ku socda xawaare 5.5 mach ayaa la yiraahdaa. orodka gantaalaha ayaa lagu cabiraa waxaana uu leeyahay waa gantaalka ugu surcada badan ee ka dagaalama hawada sare wuxuuna gaarayaa 30 ayuu hawada jarayaa. gantaalkan marka wuxuu leeyahay waa gantaal ay ridi karaan dhulka laga ridi karo maartay maraakiibtana ay ridi karaan. waa gantaal loogu talagalay in lagula dagaalamo hawada. waayahay warbixinta kale ee uu bixinayo sida arkaysaan waa gantaalkii oo si jiif ah u soconaya 150 kilomitir ayuu gaarayaa yiri. haddii sidan loo jiifiyo gantaalka markan waxaa lagula dagaalamayaa uu yiri doomaha laga tuuraya iyo maraakiibta kale waa midka Mareykanka loogu talagalay in maraakiibtiisa lagu dajiyo gantaalaha ay haystaan ayuu ka mid yahay. waayahay marka maxaa kale oo markaa soo kordhay oo la leeyahay gantaalkan waxa uu ilaalinayaa oo uu macnaha waardiye ka qaban karaa dhul ballaaran ayuu waardiye ka qaban karaa ayuu leeyahay. haddaba sidaa arkaysaan wuxuu leeyahay 300 oo kilomitir oo isku wareeg ah 300 oo kilomitir oo isku wareeg ah ayuu gantaalkan
wixii soo galaa la dagaalami karaa hadday cirka tahay iyo haddii ay badda tahay marka wuxuu leeyahay gantaalkan waa gantaalka dib u dhigay cabsina ku abuuray ciidamada Mareykanka oo mar hore weerari lahaa sida la rumaysan yahay halkaas ayuu sheegay in xaaladdu ay halkaa marayso marka gantaalku marka waa gantaal yaab leh sidan markii loo rido hawadu ka qaraabanaya diyaaradahan Mareykanka iyo kuwa Israa'iil oo iska socsoconaya lagtu ka saari doonaa leey haddana waxa eega u waardiyeenayo waa 300 kilomitir ayuu ilaalinayaa haddii saan loo seexiyana oo saan loo rido oo markabka laga rido 150 kilomitir markabka jooga lagtu ka saaraya xawaaraha uu ku socdana xawaare aan caadi ahayn waay marka waxay leeyihiin Al Jazeera gantaalkan waa gantaalka reefiska ama gadaal marshada uu u gashtay Mareykanka oo baqdinta weyn uu ka qabo gantaalaha dhowr gantaal waaye kuwa kale Shiinaha keenaa jira marka gantaalkan Sayaad G3 la dhaayo murana ka taagan Iran ma samaysay su'aal keenay dadka qaar marka wax falanqeynaya waxay leeyihiin Iran hadday samaysay wax hadeer la sameey kara ma way ku dagaalamayeen dagaalkii 12 maalmood ee gantaalkan magaca Iran uu soo qoran yahay Ruush ama Chinese qola keento meesha ku tijaabsanaysa oo rabta in Mareykanka nagta looga saaro gantaalka inuu wax gal yahay in kale in lagu ogaado rabaa meesha marka waxba lagu tijaabsanaya qola kasta marka xaalku halkaas uu maraya haddaba dhanka kale dawladda Oman ayaa waxay sheegtay in wada hadaladii la isugu soo noqon doono Mareykanka iyo Iran haddaba marka aan idintuso wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray dawladda Oman waxay sheegtay in la qaban doono wareeg kale oo wada hadallo cusub ah kaasoo dhex mari doona Washington iyo Tehran wuxuuna ka dhici doonaa magaalada Geneva ee wadanka Switzerland wasiirka arrimaha dibadda ee saldanada Oman Badr al-Busaid ayaa axadda maanta ah wuxuu sheegay in la qaban doono wada hadallo cusub oo dhinacyada ay ku kulmi doonaan maalinta Khamiista ee soo socota sida uu leeyahay haddaba wasiirka arrimaha dibadda wuxuu ku soo qoray boggiisa X in ay farax gelinayso dhinacyadu inay markaa isla qaateen in wada hadalka Khamiista soo socota mar kale ay magaalada Geneva ku yeelan doonaan marka ninkan wuxuu leeyahay wada hadallada Khamiista dhici doonaan wax dhinac ah oo dhibaato sheeganaya ma sheegin laakiin warbaahinta waxay leeyihiin Mareykanka xujo ku xaray wada hadallada Mareykanka xujo keenay xujada marka maxay leedahay xujada wuxuu leeyahay inta inaan wada hadallada tagin 48 saac ka hor waa inaan haysanaa waxa Iran ay rabto inay markaa ka tanaasusho annaga way isla ognahay wixii hore Iran meesha taaginta waa ognahay annagana waa ognahay marka inaan isa soo lugoyno ma haddii Iran ay rabto inay tanaasusho oo ay wax ka hadasho oo wixii hore ka dabacdo 48 saac ka hor noo soo gudbiso taas marka waxa lagu fasiray in Mareykanku ay og yihiin Iran meesha ay taagan tahay haddii shir kasta la tagana aan waxba ka soo baxay haddaba marka aan idintuso wararkii ugu dambeeyay iyaduna sheekada laga qoray Al Jazeera waxay soo xiganaysaa wargeyska la yiraahdo Axios ee ka soo baxa dalka Mareykanka waxay sheegtay maamulka Trump inay shuruud ku xireen hindisaha inay Iran maartay saacado inta aan wada hadallada la bilaabin ay markaa shuruud ay ku xireen haddaba shuruudaas ayaa waxay leedahay jiradu mas'uul Mareykan ayaa sheegay in maanta axada wada hadallada Mareykanka ay diyaar u yihiin inay ka qayb galaan laakiin loo baahan yahay 48 saac ka hor in Iran ay soo qadinto muqtaraxeeda ama hindiseeda ku saabsan heshiiska nuclearka iyo arrimaha la doonayo in laga wada hadlo mowqifka Iran oo cad marka Mareykankuna shuruudahaas ku xareeya marka waa arki doonaa kulay wixii soo baxa shuruudahaas qadar xaysiisa kadib taliyaha ciidanka dhulka qaybta waxaanu ku soo qaadanaynaa maalmahan waxaanu ka hadlaynay ciidanka badda ciidanka cirka maxay difaaca laakiin waxa soo baxay caawa taliyaha ciidanka dhulka ee Iran ayaa hadlay haddaba marka aan idintuso wakaalada wararka Turkiga Anadolu waxay leedahay taliyaha ciidanka dhulka ee Iran ayaa wuxuu sheegay dhaqdhaqaaq kasta oo cadawgu ay sameynayaan
inay diiradda ku saareen oo ay og yihiin oo ay si gawni ah u ilaalinayaan. taliyaha ciidanka dhulka ee Iiraan gaashaale cali jahshani ayaa axadda maanta waxa uu sheegay in markaa dalkiisu ay markaa dhaqdhaqaaq kasta oo ay sameynayaan waxa uu ku tilmaamay cadowga saacad kasta ay la socdaan. hadal ayuu ka jeediyey taliyaha ciidanka dhulka ciidamo markaa halkaa isugu soo baxay magaalada la yiraahdo Beershahir oo ku taala gobolka Azerbaijan galbeed ee ku yaala dhinaca xuduudka Ciraaq. taliyaha ciidanka dhulka wuxuu leeyahay cadowgu dhaqdhaqaaq kasta oo sameynayo saasaan u ilaalinaynaa, waa ognahay xuduudaha wadankana waa haynaa, macnaha meel kasta iyo xuduud kasta iyo meel kasta ciidanka dhulka way joogaan. marka hawshu marka waxay yiraahdeen annagu saacad kasta diyaara u nahay, wax kasta hadduu rabo inuu sameeyo Mareykanka waa la soconaa. haddaba marka waa arki doonaa xaaladihii ugu dambeeyay ayaan idiin soo koobay wararkii dhanka iyo bariga dhexe. haddii alla idmo wixii soo kordhaa berito ayaanu wada socon doonaa haddii alla idmo. barnaamijkii caawana waa naga inta alla gareeya oo sheer gareeya. mar kale Ramadaan mubaarak, nabadgelyo.